Alle u naxariisto waxaa magaalada Yalu oo qiyaastii xarunta ganacsiga ee dalka Turkiga Istanbul u jirta ku dhawaad 150 kiiloomitir ku geeriyooday Sheekh Maxamed Cali Saabuni oo ka mid ah tiirarka ugu waaweyn ee Ahlusunna wal Jamaaca waxaana lagu aasay xarunta ganacsiga ee dalka Turkiga Istanbul wuxuuna Sheekh Maxamed Cali Saabuni ahaa caalim si weyn looga yaqaan guud ahaan caalamka Islaamka wuxuuna sheekha ka soo jeedaa dhalasho ahaan dalka Suuriya wuxuuna sheekha alifay kutubo fara badan wuxuuna diinta islaamka ku bixiyay inta ugu badan cumrigiisa waxaana sheekha janaasadiisa ka soo qayb kale culimo aad u fara badan waxaana janaasada lagula tukaday masjidka Sheekh Maxamed Al-Faatix oo loo yaqaan Jaamicul Faatix waxaana ka mid ahaa culimada Soomaaliyeed ee ka qayb kale janaasada caalimka weyn Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan Raage asalahan wuxuu ka soo jeedaa Suuriya magaalada Xalab uu ku dhashay wuxuu ka soo cararay dagaalkii iyo dhibaatadii badneed oo ka dhacda Suuriya ayaa culimadii lagu dhibaateeyay marka dhibaato badan buu la kulmay dhibaatadaas uu la kulmay ayuu kaga soo cararay diinka daraadii asagoo u soo cararay mashaayikhda halkan joogto oo Turkiga maanta waxay ku faanayeen dhibaatadii loo geystay halkaas iyo inuu halkan uu Ilaahay ugu oofsaday oo halkan ku aasaya sharafay noo taabay waxaa halkan ku soo aaday oo culimo badan culimadii Yamanta iyo Suuriya Ciraaq mashaayikh fara badan iyo dad fara badan baa ku soo qahay wadankan markay dhibaatooyin ay qabsadeen wadankoodii marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wadamadaas oo dhan oo dhibaatada ay ka wadaan heer galbeedka iyo dhibaatadaas Ilaahay inuu ka kiciyo oo dhibaatadaas ka bixiyana Ilaah baan uga baryaynaa marka sheekha waxaan leenahay إلهي رحمة ديسا كتبولو كرديسي رحمة ديسا إلهي أكشوبو أنكنا ديسنا ما في النايو سيارة ديسا يا صلاة أن كنتو كانوا جنازة أنا إلهي أنك أقبله سادام عبد الله السياد شبكة المتحابون في الله مجلة مقدشو المعبود محمد رسول الله